marka aad tahay qof dadaalaya qof kaa xun ma weydid markaad tahay qof iftiimaya faraxsan qalbiga qani ka ah hore u socda qof kaa xun ma waayeysid badiyaa dadka kadeeda kuwan caytamaya kuwan gubta badan leh kuwan xumaantaada mar walba daba raadinaya haddaad nuurayso dhalaalayso dadaalayso mar walba rabayna waxaa ku masaxaan ay ku baabiyaan fadeexad been abuur dabagal ceeb cay qofkan xumaanunka sheeg dadka waxaa mar walba ku jira oo naftooda bal xisaabinayn oo ayaguna dadaalayn oo ayaguna kartidooda la soo baxayn adiga kugu maqan ambase kan warka ka qaado kan kale u gee dadun baa waxaa ku shaqaystay subaxda markay soo toosaan kan war ka qaado kan kale war u gee kii warka u geeyey ka qaado kan kale u gee labadan isku dir maanta heblaayo lugaheega falaqee kabaheega falaqee dharkeega falaqee dadka waxaa ku mashquulan subax ilaa habeen oo shaqo kale ahayn dadka noocaasa ma taqaanin ciday yihiin dadka noocaasi waa dadka guushu ay ku yar tahay qof saasoo kale haddaad aragto waa qof guushu ay ku yar tahay oo noloshiisa guulo aan soo hoynin weeyaan waayo dadka guushu ku badan tahay oo wax soo kordhiya noloshooda usoo kordhiya naftooda yarun wax usoo kordhiya amba dadka kale wax u qabta oo guulaha urursada sidoo kalba guusha kale ugu xigsiinayo oo qofkii halkaa kalsooni uu ka qaaday marka la arkaba qofka la leeyahay waa guushii u socota dadkaasi kuma mashquulaan dadka kale waqtina uma hayaan inay u jawaabaan waqti uma hayaan inay qofkan kula tartamaan waayo isku level maaha qofkaad isku level tihiin baa wada tartama Burger King iyo McDonald's dee way tartamayaan waayo isku level bay socdaanoo lacagay helaan way isku yar dhigmaan ma fahanti laakiin qof pizzeria yar shalay xagan ka furtay dee McDonald's lama tartamayo waayo isku waxna ma sameeyaan midna pizza buu sameeyaa midna burger isku lacagna ma soo hooyaan sanadkii marka waxaa jira markaa cidda aad rabto inaad u jawaabto bal u fiirso horta muxuu guul soo hooyey marka saacaddu inay kaaga dhicin dabeecadaha noocana waxaa u badan dumarkaa u badan walow imika raggii sanadadan dambe aan fahmi laayahaybo oon isleeyahay war halkay marin raggii geelshireenkiiye raganimadooda iyo kartidooda iyo guulaha badan soo hoyn jireen ku mashquulin jiren dadka kale halkay mareen baan israhdaa waxa aad iyo aad u soo badan inkastay jiraan wali haddana waxaa aad iyo aad u soo badanaya nimanka sida dumarka u dhaqma imikee wararka gora dadka isku dira wax falaaqeeya timuhu falaaqeynaya oo bidaartiinii ku falaaqeynaya oo calooshiisa yaroo kuusan ku falaaqeynaya oo wuxuu falaaqeynayaa islaantiisa yaroo ninkan saliid iyo subag iyo waxa usoo marisa mooyaane fariida abu falaaqeynaya uu leeyahay baleeg siday ka dhigtay oo adiga maxaa kaa galay marka nimanka waxaan leeyahay sanadadan dambe jiljilac badan baa la timaadeene jiljilaca dumarkaa iska naga daayo oo raginimadiina halka la imaada baan leeyahay oo hore u socda oo tartankiini adduunka ee daaraha lagu tartamayay ee gawaarida lagu tartamayay ee muxuu ahaa lacagta lagu tartamayay iska wata oo naagaha levelkooga dee inaad soo gaadhaan waa laga qurux badan yahay baan leeyahay markaa dabeecadaha noocana dadka qof walba mar walba liidaya dumarkaa u badan anoo duwara anoo haweenaya ayaa sidaani leh wallaahi anaa dee dumar ku dhex jira ma dumarkaa u badan falaaqaynta foosha xun leh noocana waayo guulaha ayaa aada ugu yar sababtay u tahayna waxa weeyaan dumarku dee horta kolley khaladka ma lahan u malaynayaa waa waxyaalaha society-ga ku dhex jira laakiin haddana hadday isdaba qaban waayaan dee xoolaha waxama dhaamayaan moogta marka waxa weeyaan waa dumar dhammaanteen laynaga dhaadhiciyey in uu aabbu wax keenayo walaalkaagu wax kuu keenayo hasuujkaagu wax kuu keenayo oo wax walba ayagu wax kastood u baahantahay kuu qabanayaan marka wax badan baa dee markaa meesha iska khaldan marka sidaa loo hadlayo markuu dee walaalkaaga wax ku siinayo wax kuu keenayo amba aabbaha wax ku siinayo amba hasuujkaaga wax kuu keenayo ku siinayo kama dhigno lixdaada lixaad inaad dhayalsato iyo maskaxdaada inaad off aad ka dhigto oonad waxba qabsan sidaas awgeed inaad isdhigato maaha
waxyaalaha daruuriga ee asaasiga ee ilaahay amray inay qabtaan bay kuu qabanayaan, laakiin naftaada adaa ka mas-uula. marka guulooyin waad la soo hoyan kartaa adiguba, inaas dhigata maaha. marka haddaad aragto gabadh ku dhegsan, lugaha haysa, da-deeda falaaqeynaysa, choicekeyga falaaqeynaysa, horumarkeyga falaaqeynaysa, gabadha sidaa u hadlaysa, guusha ku yaroo nolosheeda may soo hayn wax guula, ma oga dadaalku wuxuu ka dhigan yahay, dhididku aad wax u dhididaysaa wuxuu ka dhigan yahay, sida wax lagu helo iyo dariiqa loo maro inayna fududeyn ma dareensano qofkaasiyo. waa qof meelun fadhiya oo wax falanqeynaya. marka hablaha dadaalaya waxaan oran lahaa ha niyad jabina, waqtiguna inuuna idinkaga luumin, xataa inamadaba ha niyad jabina. haddaad aragtaan dad idinku maqan mar walba, waa dad aan guul soo hoyn. soo bacdama ayna guul soo hoyn, waxa keliyay garanayaan ay naftooda ay ku hubaanuun waxa weeyaan qof kale ay falanqeeyaan. intaasay ugu dhantahay caawa. qofkaasi wuxuu isleeyahay maanta hawl baabad qabatayba, qof baad maanta dhan ka sheekeynaysay, adliis waxbaad qabatay. marka waxaan oran lahaa dadaalkiina halkaa ka wada, bulshada iska sidaas ay nooc baa ku jira, dreamkiina wata, dadaalkiina wata. qofkii hadlaya ha hadlo, isagay u taalaa. adduunyadan laba dariiqun baa jira, ma fahantay? marka labadaa dariiqna waa ka dadaalka, dariiqna waa ka fadhiga iyo falanqaynta. markaad adigu mid baad dooratay kii dadaalkood horada u socotaa, soo maha dee kan falanqaynta iyo fadhiga ha soo dhex fariisan, waayo haddii kale saacaddu si qofkan uga dhacdayba adigana kaaga dhacaysa. marka hore u soco, yaa horaa loo yiri hadal hayntu waa sharaf. qofkii natiijo keenaya wax keenayun baa la hadalaya, qofkii kale aan waxba keenayn halkaa iska fadhiya iska socda waxba waruma hayso qofkaasi. marka adigu ha ku mashquulin hadalka yar ee lagaa sheegay, hadday been tahay iyo hadday run tahayba ha ku mashquulin. waxaad ku mashquulshaa manigaad samaynayso, waxaad ku mashquulshaa gaaraha dhaadheer aad dhisanayso, waxaad ku mashquulshaa gaadhiga ku xigeed iibsanayso, waxaad ku mashquulshaa dalxiiska wadanba wadan aad isku bedelayso. intaa ku mashquul oo noolow ilaahay baa ku siiyey nolow. fahantima? laakiin qofkan xagan fadhiya dee naftiisa ilaa uu bedelo ilaahay waxba uma qabanayo. qowmba ilaahay ma bedelo isagoo isbedelo mooyaane. marka qoomku dee qoom dhan haddaa laga hadlayo, xitaa qoomka ayaa kamid a, dee shaqsigii baa kamid a. marka qofka hadduuna naftiisa isbedel la rabin iyo dadaal iyo horumar, dee wax lagu qabanayaa iska yar. markaa si aad wax fiican u hesho ilaahay weydiiso, dadaal, fadhiga ka kac, xasadka iska daa, xumaanta iska daa. yaa xasadka qofka uu fool xumeeyaa, xasadka qofka kartidiisuu loo siiyaa. xasadka horaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam noogu sheegay oo acmaasha wanaagsan oo dhan buu gubaa. marka dadka xasadka ka daa, kartidaadu si aad u muuqato, dadaal. markaad dadaasho hal guul baad gaari, guushaasi waxay ku siin doontaa kalsooni. aad guul kale ku gaadho, waa guulaha badan eed soo hoynayso waxa kalsoonida qofka ku abuura, ku beera. marka naftaada ku mashquul, intaana dad kale ku mashquul. naftaada xisaabi intaad qof kale xisaabinayso, adigu naftaada ku eekow. waayo keligaa baad soo dhalatay, keligaana godkaa yar ee ku sugaya waa lagu gelinayaa. marka qof walba inuu saa isku xisaabiyaa wanaagsan. waxaa rabay xaggeenan aad iyo aad uga soo dhiirigeliyo qof waliba oo dadaalaya. haynta la socoto cayda iyo aflagaadada iyo dhibaatada iyo xanta iyo beeno lagaa sheego, waxa kaliya looga dan leeyahay waxa weeyaan niyadda lagaa jabiyo. waxa kaliya looga dan leeyahay waxa weeyaan in dadaalka aad wado aad gaabiso lagu soo fadhiisiyo. marka taana cidna ha ka yeelin, cidna ha ka dhagaysan, hore u soco. qofkii ku xamanaya isagaa ku xantay, oo malaa'igtu way kuu qoraysaa hadhow toole yowmal qiyaamaha waa lagaaga soo qaadi doonaa ajarka yar uu shaqaystay. hadduuna meesha ajar ku hayna, dee adiga haddii wax dembiyo dhacdhaci kaa dhaceen, isagaa dhabarka lagaa saarayaayo maalintaasaa lagu aargooynayaa. laakiin adduunkan ha ku mashquulin inaad aargoosato, waqtigaa kuu aargoyn doona. ha ku mashquulin inaad jawaabto, ha ku mashquulin inaad walwasho, laynkaaga hayso. mar haddii lagu hadal hayo lagu caayayaba, waa inaad ogaato qofkani kabahaad gashan tahay ma gashan karayo. marka dadka noocaas oo kale ah
oo dadka kabaha u qaada oo doonaya inaad iska yar gubayso. gubuhuna diin ahaan waa xaaraan, marka cidna lacagha ku siinin lagu jeclaado. dadka ku jeclaanaya waa dadka jecel wanaagaaga, kartidaada, horumarkaaga, dadaalkaaga, afkaabnidaada, naxariistaad u naxariisanayso walaalahaaga aan waxba haysan. waa dadka u adeegaya bulshadiisa, diintiisa. wanaag walbood qabanayso, quluubta wanaagsan ee ilaahay ku xiran mar walba uu soo jiitaa. hooye, aabbihi, walaal buu kaaga dhigaa. hore u soco, ha ku mashquulin hadalka dadka. intaasaa kaa raba inaan kaa dhiirigeliyo maanta. marba haddaad dadaalaysood naftaada usoo kordhinayso, dareensan tahay waxaad samaynayso in wax kuu soo kordhinayo, marnaba hadalka dadka ha u joojin. marka maxaan rabaa inaan ku idhaahdo, aamusnaantu waa dow. aamusnaantu waa dow. aamusnaantu waa halka hore loogu maro. aamusnaantu waa halka ciziyo karaamada lagu haysto weyaan. u aamusun. qofkaasi 4 cisho 5 cisho markuu ku hadalayo u jawaab weydo, meel kale ku wacan. waayo wuxuu rabaa qof u jawaabo tusa inaad arkayso. in la arkuu rabaa, laakiin wixii lagu arkayay meesha kuma hayade. markaa siyaabo kaloo lagu arkuu rabaa. dadka inuu hadal hayo in lagu arko ayuu doonaya. marka qofkii usoo jawaaba unbuu dareemi karaa in la arkayo. laakiin haddaad u jawaabi weydood hore iskaga socotood naftaadan ku ekaato, wuxuu qofkaasi dareemi doonaa inaanad arkayn. marka isna muxuu rabaa in la arko doonaya. waxaad ogsoonaataa dadka kale ka xun, xaasidaya, xumaynaya, dhibaataynaya, caynaya, dadkaasi waa dad aan nolosha guulo kasoo hoyn oo bilaa guul ah. laakiin dadka dadaalaya kuma mashquulaan waxaasoo kale. marka adigu waxaad tahay qof guulo badan soo hooyay. dadka guulaha badan soo hooyana dadka kale kuma mashquulaan. mar walba waa biisi. bal u fiirsada, mar kasta waa biisi. ayagunbaa la hadal hayaa. laakiin kan wax hadal haya, wax caayaya, dadka dhibaateynaya waa bilaa guul ma hayo. marka in la arka buu rabaa. adigu waad dadaalaysaa, gaari baa lagugu arkayaa, guri baa lagugu arkayaa, nolol baa lagugu arkayaa. shalay Dubay baad ka quraacanaysay, xalayna Qatar baad ka soo cashaysay. kolba meel adoo marayaa lagu arkayaa. dee qofkan isagii lama arkayo. xataa suuqa yaro isagoo wax wata ama wax sameynaya lama arkayo. markaa wuxuu rabaa in la arko doonaya qofkani. ma fahantay? mashquulun baad ku jirtaa. laakiin qofkan kale guul lama hayo, cidda ma arkayso. markaa muxuu rabaa inay dadku arkaan u doonaya. dee siyaabo qurux badan qofka lagu arkaa jir karama. dee siyaabihiina ma garanayo waxba muu baran. marka in si u loo arkun buu rabaa. marka waa inaad ogaato, ummadda dhibaysaa waa dad bilaa guul ah. marka isku level ma tihiinbe, ha ku mashquulin. hore u soco, dadaalkaaga adigu wado.